السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا فيلم كان ما أنت صحبتي دقاليقة مقال كان دكو بحسب يهلك نصار سبسكرايب نوتاو مقال كان ما أنت بحو كبلاونا يا جبرات يا تو فرح سنين بري لكل مدون تصاحب كذا قاليقة هبيك مركي لجارين سبر كيسي في سنيسا وإحنا صاحب سنيسا مركي يراين ملاش يصوّد قاتين يبل ما هي إسكاقادين تواني لو سنة كدبنو قدام بين بس لكل مرمان لوضوضة صبحي مركو واو برين ترينا يا raacaysa tareenkaasna wiil ayaa saarnaa wiilkaasna way salaamaysaa waxaan ku dhahay xagee u socotaa laakiin wiilka dhinaciisa waxa taagnaanin tuug ayada inta asiga mashquulinaysa in tuugu wuxuu isku dayay inuu asiga lacagta ka dhaco laakiin cajarka iyo sakiin uu sareeya asigana waa qaynaa markuu cajarkiisa fiiriyeen wuxuu arkay inuu dhiig ka socdo kadib ninka iyo kuleetii ka qabanaya waxaan ku dhahay maxaa kugu kalfamidaas asiga feer ku dhufaran tareenka ayaa joog dhahayo kadib ayada iyo ku raaxaynta ayada ku mashquulsan yahay tuug lacagta ayaa ka baxsanay kadibna tuug wuxuu ku dhahayaa macsalaamo asigana ayada iyo ku qarar baxaya waxaan ku dhahay adiga tuug way isla socoteen Soomaan lacagteediisi labadoodna way isdagaalaan ugu dambeyn saldhig booliska ayaa la keenay ninkan wuxuu ku amrayaa ilaa caawina halkan joogayaan kadibna haweenkii markii la gaar labadooda way soo baxayaan ugu dambeyn haweenada kamid ah waxay ku arkaysaa asigoo laami wax ku gadaayo kadibna wuu arkaa waxaan ku dhahayaa masiibo wili adma hortaagan maami sidoo horteeda markii la xatido kadibna roob ayaa soo daaya laabta watalanayana ka daadanayso ayada run ahaantii way ka xumaanaysaa maadaama laabta ka daadata sigana ayada oo fiirinaya ugu dambeyn maalinta xigta waxay raadinaysaa guriga saaxiibkeeda waxayna soo gashay guri adeerkan wuxuu ku dhahayaa wiilkay miyaad u baahan tahay ayadan waxay ku dhahaysaa wiilkan waxa loo sheegay gixlisadiisa inay joogto asagana midaas wala yaabay markuu banaanka soo baxan ayada iyo arkaya waxaan ku dhahaysaa mid taqaanid miya adig ma walantaay ku dhahay sideen ku aqoonsanaan ayadan waxa uu sheegaysaa xasuusta ugu dambeysay intaysan ka tagin kahor labadooda ka dhaxaysay kadibna asiga inuu fiiriyay wuxuu ku dhahay adig miyaane ayadan waxay ku dhahaysaa haa deertaan ay fahminayaan u mileynaa kadib wuxuu ku dhahayaa meeshaan iskaaga tag ayadan waxay ku dhahaysaa maxaa kugu dhac kadib uu kala tuuray waxaan ogaanaynaa markaa xasuusta u laabano darkeena wiilkii saaxiibkiisa ay markuu ku dhacay biyahayna ayada soo badbaadisay badbaadadaas kadib wiilka markuu naqas ku dhigin ayada ayaa neefteeda siinayso neefteeda markay siisay kadib sidoo u nacay waaye xanaaq ayuuna u qabaa ilaa hadeertaan mana rabo inuu sii arko wajigeeda ayada waxay go'aansanaysaa inay baxda abihiisna uu macsalaameynaya asigana wuxuu ku dhahayaa la meesha ka tegis waan ku raaxayaa kadib markay tareenkiis la soo raacaan wiil feerwanaya jug siinayo asigana wuxuu ku dhahayaa geeskan u bax kadib wiilka agtiisa uu fiirinaya lugtiisa iyo jug ku siinaya feerwan uu ku dhaha dadka xog ugu faanay miyaane ayadana way ku qoslaysaa markuu fiirin way aamusaysaa intaas wixii ka dambeeyay tuugo lacag oo ka qaatay soo weeraraysa ayadana way ka celinaysaa waxayna siinaysaa lacagta yareetay ayada wadatay waxayna ku dhahaysaa dambe gacan uma qaadi kartaan asigayaan meesha ka soo wadaysaa kadib asigoo istaajina maxaa sidaan u samaysaa ayuu ku dhahayaa kadib gurigiisa dhow inshaalla ku imaanayaan maadaama ayada lacagaysan haysan bixi karin wuxuu ku qasbanaanaya inuu guriga ku soo celiyay kadib waxay fiirinaysaa gacanta sida uga haysto asigana xooguu gacanta iskaga fujinaya ayadan way qoslaysaa kadib qolkiisa iyo soo gelina waxaan ku dhahayaa halkaan iska seexo ayadan waxay ku dhahaysaa baahi ay hayso hadalkeeda maqlay laakiin habeenkii soo kacday waxay cunto raadsanaysaa kadib gabar jikada soo gashay ayada arkaysa wayna qaylinaysaa waxaan isku soo baxaya familkoo dhan waxay weydiinayaan wax ku dhacay kadib waxay arkayaan gabadha asigana midaas uu ka xumaanaya ayadan waxay ku dhahaysaa kistaan xunto bas ayaan soo reebay asigana hel ayuu usii qaadayaa adoogan wuxuu ku dhahayaa hada kadib saqaaf koreya seexan kartaa asigana wuxuu keenayaa busti iyo barkin maadaama ugu faraxsan yahay halkan joogto ugu dambeyn maalinta xigta waxay cabaysaa khamri wayna iska seexanaysaa asigana walayaa waxaan isku dayaa inuu kiciyo markuu kici maagin ayada hab ayay siinaysaaba waxaan ku dhahaysaa macaankeyga adiga miyaa aadan kuugu xiise araamax ku siiyo kadib inay qabata ayaa afka shiminaysaa asigana midaas aad iyo ula yaabayaa wuuna iska fujin weynayaa ugu dambeyn markuu iska fujiyo aad iyo ugu naxariisanaya ayadan hab ayaa sii siinaysaa ugu dambeyn wuxuu keenayaa qolkeeda wuuna seexinaya asigana si xun ayuu fiirinayaa kadib subaxii markuu waa bariyay ayadoo suuq ka imaada ayaa arkaysaa waxaan ku dhahaysaa istaag xagee u socotaane asigana wuu isku naxayaa kadibna wuxuu soo xasuusanayaa markay shiminaysay kadibna wuxuu sheegay ayuu weynayaa waxaan ku dhahayaa meel ayaan u socdaa ayadan waxay ku dhahaysaa maxaa kaa qaldan maanta kadib suuq ayaa isku soo raacaan waxayna ka helaysaa saako asigana wuxuu ku dhahayaa anaga lacag ma hayno saakadan iska dhig kadib waxay arkaysaa tuugii asiga lacagta ka xaday
waayay. Kadib gacanta ayay ku qabanaysaa, waxayna ku dhahaysaa tuugi waan helay. Laakiin tuugi si xun ayuu u kala tuurayaa, dadkoo dhanna way la yaabayaan. Ayada run ahaantii aad ayay u xishoonaysaa maadaama saakadada dhinac laga jeexay. Kadib wiil meesha jooga ayaa jaakadiisa u daboolayo, waxaanu ku dhahayaa soo istaag. Ayadan way ka xishoonaysaa inay istaag sababtoo lugta ayaa xanuunaysa. Markay isku daydan way istaagi weynaysaa, kadibna asiga ayaa kor u qaadayo. Ayadan way diidaysaa, waxayna ku dhahaysaa idda ceeb waaye sidan, laakiin asiga ma yeelayo. Ugu dambeyn saaxiibkeeda ayaa meesha imaanaya, wax meesha ka dhacayo la yaabayaa. Kadib ayada ayaa u imaanaya, waxaan ku dhahayaa maxaa dhacay. Kadib waxay u sheegaysaa wax walba oo meesha ka dhacay. Asigana wuxuu ku dhahayaa wiilku badbaadiyaabay. Markuu wajigiisa arkayna jaakadiisa ayuu u celinayaa. Ayadan gacanta ayuu ka soo qabsanayaa. Ayadan way la yaabaysaa midaas, wiilkan si xun ayuu u fiirinayaa. Ayadan waxay ku dhahaysaa wiilku way badbaadiyay, maxaa sidaan ka wadaane. Asigana wuxuu ku dhahayaa iga aamus ha ila hadlin. Kadib wuxuu soo xasuusanayaa sanadooyin ka hor, asigoo fiirsanaya sawirkeeda ayuu wiilkaas u imaanayaa. Kadib sawirkii oo ka xadaya wuuna ka tuurayaa, asigana wuu xanaaqayaa wuuna ku duufayaa. Ardaydoo dhanna asiga ayay eeda saarayaan maadaama asiga koodii uu ku duufay. Kadib markuu xasuusta kasoo laabta asiga lama hadlayo. Maalin maalmaha ka mid ah iyadoo maqaayada joogtay la yaabantaa cuntada dalban laheeday ayaa wiilka u imaanayaa, waxaan ku dhahayaa waxaan jeclaystay inaan kabahan ku siiyo. Ayadan way ku farxaysaa, si ayay ku dhahaysaa, laakiin wuxuu ku dhahayaa lacag la'aan miyaad qaadanaysaane. Ayadan boorsadeeda ayay furaysaa, lacag ayayna u soo bixinaysaa. Asigana wuxuu ku dhahayaa lacagtan yar miyaad rabtaa inaad ku gadatid, waayaha waan iska kaasiinayaa. Ayadan way ku farxaysaa, kadibna wuxuu ku codsanayaa inay wax la cunto. Ayadan way ogolaanaysaa, waxayna ku dhahaysaa waan kula cunayaa. Cuntada markay dhamisan run ahaantii way ka helaysaa, waxayna ku dhahaysaa aad ayay u macaan badan tahay. Asigana wuu ku qoslayaa. Kadib waxay uga sheekeynaysaa yaraanteeda, asigana wuxuu soo xasuusanayaa gabadhuu yaraantiisa jeclaan jiray, weliba biyaha ka badbaadisay asigoo dhiman rabo. Kadib asiga waxaan ku dhahayaa waad iga qarisay inay tahay gaclisadaada hore, laakiin hadeertaan waa hel aniga ayaan iskale. Laakiin waxnaaqaya waxaan ku dhahayaa meesha joogtid ayaan kugu imaanayaa. Ugu dambeyn wuu u imaanayaa asigoo garaax rabane. Ayada ayaa meesha imaanaysa wayna ka celinaysaa, waxayna ku dhahaysaa maxaa kaa qaldan, wiilkan maxaa ka rabtaa. Aniga ayaa halkan inta uga imaaday, anigoo halkan joogayaan is aragna, anigan raali ayaan ku ahay, adigana ha garaacin. Asigana wuu xanaaqayaa marka ereygaas dhahdo, wuxuuna jijibinaa wax meesha yaal. Asigana gacanta way ka qabanaa, waxaanu ku dhahayaa ha iga tegin. Maalin kale ayadoo meel taaganayo gacanta ka qabsanaa, waxaanu ku dhahayaa banooni ayaa jirta maanta miyay raacaysaane. Ayadana way ka ogolaanaysaa. Ugu dambeyn asigoo TV u shidanta wax iska cunayo wuxuu arkayaa ayagoo isla fadhiyaan. Asigana aad iyo aad ayuu u xanaaqayaa, wuxuuna ogaanayaa waxaanu dhan inuu ku dalgal u sameynayo. Baastada ayuu dhulka iska dhigaya asigoo aad u xanaaqsan. Kadibna wuxuu go'aansanayaa inuu xaggooda soo aado. Ugu dambeyn ayagoo banaanka taaganaya u imaanaya. Kadib ayada way ku farxaysaa, xaggiisa ayana aadaysaa, laakiin ninkan wiilkan ayuu feer ku dhufanayaa. Waxaan ku dhahayaa gabadhan ka harman kaan oogayne. Ayadan waxay arkaysaa booliiska, aad iyo aad ayay u naxaysaa, waxayna ka cabsanaysaa sidiisii lamida in loo xiro. Waxayna ku dhahaysaa aniga waan carar idinka leewaay. Ayagana way ka daba cararayaan. Kadib intay cararays maadaama laga sii tagi rabo asiga gacanta ayuu ka qabanayaa, saaxiibkeeda kalena gacanta ayuu ka qabanayaa asigana. Saddexdoodana ayagoo isla faraxsanaya soo cararayaan. Run ahaantii qof walba qofka kale asigoo fiirinayo meel soo fadhiisanaya. Saaxiibkoodna aad iyo aad ayuu u qoslayaa, ayagana way la yaabayaan. Ugu dambeyn way soo baxayaan ayagoo dhan. Kadib maqaayad ayay imaanayaan, cunto ayayna isla cunayaan. Kadib khamri ayuu usoo shubaa wuu siinayaa, laakiin midka kale ayaa ka qaadanaya asiga ayaana cabaya. Koob walboo loo shubana asiga ayaa ka cabaya. Tookada dambena waxay ku dhahaysaa adiga miyiga cabi kartid, ayada ayaana sidii ku cabayso, laakiin halka koob ay cabtaba hore ayay ka seexanaysaa. Wiilkan waa la yaabaya, waxaan ku dhahayaa iyaguba way seexatee. Asigana waxaan ku dhahayaa korkeeda ha isku taaban, haddii kale wax badan ayaa dhacayo. Kadib asiga ayaa taabanaa, waxaan ku dhahayaa kac waa baxaynaaye. Subax marka waa u baryan bac ayuu u keenayaa, bacdan isi ayay ku dhahaysaa, asigana wuu diidayaa kor ayuu u qaadayaa, laakiin ayada xoog ayay u qaadanaysaa. Waxayna arkaysaa saakadii hadda ka hor ay arkaysay. Kadibna waxay ku dhahaysaa anima ii soo gadayne. Asigana wuu ka cararayaa. Ayadan waxay soo xasuusanaysaa maalintii ka helaysay. Kan banaanka ayuu soo baxayaa, hadalkeeda ayuuna dhageysanayaa, laakiin soo baxitaankeeda markuu maqlo wuu ka sikanayaa. Ayadan waxay ku dhahaysaa sidaan ku ahayne, si fiican ii fiiri. Asigana lama hadlaa wuu ka tagayaa. Ayadan waxay ku dhahaysaa aniga waxba ii dhihin maad iska bixaysaane. Kadib inuu soo jeestay oo wuxuu ku dhahayaa waad ku nuuraysaa. Ayadan waxay ku dhahaysaa mahadsanid. Kadib gudaha ayuu soo galayaa, wax walba uu sameeyayna wuu ku farxayaa, iyo dirac sidee ugu qurux badneeday. Kadib saaxiibkeeda kale ayaa u wacayo,
waxaan ku dhahayaa xafladeeda waa iimaaw. Aydan markay meesha maadama ka helayso waxaan ku dhahaysaa iga fogow. Asigana wuxuu isku dayaa mar walba inuu soo dhawaado asigoo weliba saayid u cabsan. Kadib taleefankeeda ayaa soo dhacay, way ka qabanaysaa waxaan ku dhahaysaa meel ayaan joogaa. Asigana qayladayoo la yaabayaa. Kadib wiil kale wuxuu ku dhahay taleefankii dhib. Asigana wuxuu ku dhahay intay kula joogi karto way kula joogtay, maanta waa tookadayda. Asigana aad ayuu uga xanaaqayaa, waan imaanayaa ayuuna ku dhahayaa. Dharkeenu soo bedelna wuxuu imaanayaa xafladda, wuxuu imaanayaa labadooda fanaan camal u heesaayeen. Midaasna wuu ku xumaanayaa waxaan ku dhahayaa soo dega dhaqso. Kadib iyada dhan ayuu soo dejinayaa, waxaan ku dhahayaa maxaa samaynaysaa Yansu. Aydan waxay ku dhahaysaa xafladiis waaye, waanu ciyaarin farxad ayaan la qaadanaynay. Asigana wuxuu ku dhahayaa maxaa kaa qaldan gabadhan maxaad u wadaysaane. Kadib iga aamus ayuu ku dhahayaa gabadhayoon banaanka soo bixinayaa. Aydan waxay ku dhahaysaa sideed u dhaqmaysaane, wiilku waa xafladiis anigana inaan ku baashaalo ayaan rabaa. Runaantii qof xun ayaa tahay ayaa ku dhahaysaa wayna kasoo tegaysaa. Kadib waxaan aragnaa wiilka kale inuu dhahay qandho ayaa i haysto, madaxayga taawo. Aydan markay taawato waxay ku dhahaysaa qandho kuma hayso. Kadib meel ayaa fariisanayaan, wuxuuna ku dhahayaa si fiican ii taawo, run ahaantii qandho ayaa gudaha iga hayso, adiga may dareemaysid miyaane. Dhanka kale wiilka kalena wuxuu arkayaa ayadoo gacanteeda u saaran tahay madaxa, aad ayuuna u fiirinayaa, wuuna ka maseerayaa maadaama asiga oo iska dhigaya inuu xanuunsan yahay. Maalinta kalena waxa soo wacaya wiilka saaxiibkeed ahaa, gurigiisa ayayna u imaanaysaa, waxayna arkaysaa asigoo jiifo, waxayna fiirinaysaa madaxiisa, waxayna ogaanaysaa inay qandho saayid u hayso. Waxayna dhahaysaa sidee midaan ku dhacdayne. Kadibna waxay geynaysaa isbitaalka. Ugu dambeyn isbitaalka hooyadiisa ayaa imaanaysa, waxayna la yaabaysaa wiilkiisa. Aydan markay aragto waxay ku dhahaysaa aniga si fiican ayaan ku aqaanaa, yaabay gabadhan ayay ku dhahaysaa wiil kale. Asigana wuxuu ku dhahayaa wiilkaaga saaxiibtiisa waaye. Ayadoo sii bixi rabtana gacanta ayuu ka qabanayaa, wuxuuna ku dhahayaa maxaan tahay iga tegin, aniga aad ayaan u xanuunsanahay. Wiilka kalena wuxuu soo fadhiisanayaa saqaafka kore guriga, ayadayuuna si xun u wacayaa maadaama uu meesha jiifado oo soo fadhiistayna wuxuu rabay inuu la sheekaysto, laakiin moobeelka maanta dhan oo wacayo waxay uga tagtay gurigii wiilka. Ayadan ma arki karto ilaa habeenkii oo dhanna wiilka kale ayay la joogtay maadaama uu xanuunsan yahay. Kadib subaxii waaba ayuu berinayaa asigoo seexanayoo la sugayay, wuuna xanaaqayaa wuxuuna ku dhahayaa xagee jirtaa, xageed iga aade. wiil kale markuu hurdada kasoo kacan wuxuu arkayaa ayadoo dhinaciisa jiifto. Kadib inuu fiiriyay ayuu ku qoslayaa. Ayadan markay soo kacdo waxay dhahaysaa waan tahay maxaa halkan ka sameynayaa. Ayadoo sii bixi rabtana way soo laabanaysaa, waxayna ku dhahaysaa horta qandhada ma kaa degtay. Asigana wuu fiirinaya ilaa uu u keeno xanuunka hadeertaan ka baaba'ay. Asxaabay qaybtan koowaad halkan ayaa ku dhamaatay.